kalfadhigan wuxuu ahaa howlaha aan qabanay wax yar haddaan ka taabanno guud ahaan waxaan dayactir ku samaynay xafiisyada ama meelihii shirarka aan ku qabsanaynay golaha intaas waa ku guulaysanay waxaan kaloo ku guulaysanay in shuruucdii ugu badnayd 3 kalfadhi marka la isku daro kalfadhigan la barbar dhigo ilaa 9 sharci ayaa la ansixiyay oo lagu guulaystay muddada hadda soo socota oo aan rajaynayno insha Allah ta'ala ilaahay nabad iyo caafimaad inuu nagu gaarsiiyo shaqada noo taala way ka duwan tahay midda kalfadhiga afraad aan soo qabanay tan 2019 la qaban doono way ka muhiimsan tahay midda hadda aan soo dhaafnay sababtuna waxay tahay waxaan rabnaa wadanka inuu u gudbo doorasho qof iyo codkiisa inuu u gudbo wadanka uu yeesho axzaab siyaasadeed runtii hal kelmad baan oo dadka dareenkoodii oo dhan taabatay waxay midda kalamaan ka dhawaajisay oo dhinaca dastuurka ku meel gaarka oo hadda ku jira dib u eegis arrinkaasi aad u muhiim noogu yahay kalfadhiga dambe haddii alla idmo waxyaabaha noo yaalo waxaa ka mid ah in dastuurkii oo dib u eegista lagu sameeyey la ansixiyo markaa diyaar u noqdo afti dadweyne diyaar u noqdo sidaasi oo kale shuruuc badan oo hadda xukuumadda gacanta ku hayso aan rajaynayno bilowga kalfadhigan in loo soo gudbiyo uu ka mid yahay sharcigii doorashooyinka asagana waxaan rajaynaynaa shaqooyinka ugu horeeya oo baarlamaanka uu qabanayo inay noqoto runtii waa kaas waa u jeedaan annaga waa isla soconnaa waana isla xisaabtannay waana isla xisaabtami doonnaa laakiin wax ma dumin doonno hadal badan kale